sidaad ogtihiin waxaan ballan qaadnay in 2020ka dalka uu galo qof iyo cod inuu galo waxaa caado ahaan jirtay waqtiyada xilka way soo dhow yihiin oo doorashadu dhowdahay in markaas la ordo oo qabanqaabo la galo kadibna wax walba ay farax ka baxaan oo runtii aan ku gaarnay meel waxay keeneen meel fog iyo iga soo kaxeeyeen waxay keeneen meel dhexe mar waxaan siraahdaa ma waxay ku heshiiyeen baa iyadoo bilooyinkii dambeeyay cakirnaaytay xaaladda siyaasadeed ee dalka isla markaana mugdo ka jartay sida la kuwalow haddii ay dhamaatay xilhaynta golayaasha dawladda federaalka Soomaaliya afgorod yala ku deeri nooca doorasho dalka ku dhiyaasa sanadkun ilaa 2021 taasay oo si shuruud la'aan la isku waafaqi Soomaaliya waliba injihaysatay doorasho guud oo dalka ku dhiyaasa hamin imaalan dhigta dadka Soomaaliyeed waliba dheegaysay doorasho qof iyo code iyo dalka ku dhiyaasa laakiin gabiyahan warkaasay hirmi kureed markay shakaha dhaxgalay hoggaanka sare ee dalka villa Soomaaliya iyo xukuumadda dood la xiriirta arrinta doorashada iyo muddaha jarti Xasan Cali Kheyre horaantii bili luulyo waliba ka nagnagay in doorashada waqti shaki dhiyaasa oo xillish la dhaafi doona arrintaas ay sababtay in Kheyre xilshiisu ku waaya 25 luulyo ee sanadkun gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waliba uu sheegay in baarlamaanka dawladda kalsoonida kulanagada xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre dhusmareeb waliba la dhakay gogolan kuwari dhammaan xubnaha maamul goboleedyada waliba gogolaasay dhakay madaxweyne mudiyar magacaabanaya waliba halbay dardar fayla iyo dadaal nabadeed oo la ku kulansiiyay dad aragtidiyo isdiidinay muddo horaantii September ee sanadkun madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Midoobiya Kooya Muqdisho lamaadii Oktoobar ee sanadkun waliba la sheegay jadwalka doorashada Soomaaliya go'aankun waliba deeray dawladda federaalka iyo xubnaha maamul goboleedyada in muddo ka shirsanaan magaalada Muqdisho tartanka kursiga waliba ka hirinya qofkii hela tiri dheeri hal cod beesada diiwaan gelinta musharaxiinta tartamaas aqalka sare waliba nagadaas $20,000 Mareykanka musharax kasta oo tartamo kursiga aqalka hoose ee baarlamaanka dawladda waliba uu se dhiibay $10,000 Mareykanka